shaybaadhka guud ee yaalla cusbitaalka dhexe ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ee lagu baadho COVID-19 sanadkaa uu shaqeynayay jarjarka waxaa la baadhay 60,570 qof dadka waxa laga qaadaa $45 qiyaas ahaan maalintii wuxuu u shaqeeyaa 250 ilaa 300 qof oo lacagta ka soo baxaysa gaadha $13,000 ilaa hadda lacagta uu shaqeeyay qiyaasteedu waa $2,500,000 mishiinka dadka ka shaqeeya shaqaaluhu waa ilaa 10 qof qofka ugu badan wuxuu qaataa $500 ka ugu yarna $150 dhammaan agabka lagaga shaqeeyo laabka COVID-ka lagu baadho reagentiska waxay nagu caawiyaa hay'adaha WHO iyo UNICEF macnaheedu waxa weeye mishiinkaas waa zero cost wax expense oo kharashi dibadda ugama baxo adduunka 2 milyan iyo barka ma jiro meel ku cad yahay ama wax lagu qabto ama qorshe loo sameeyay ama budget uu ka muuqdo oo uu ku jira waa lacag haddii la qorsheeyo qaranka u tari karaysa wax weyn lacagtaas waxa si toos ah u gashaa wasaaradda caafimaadka account-ka lagu diray saadka iyo lacagta cadaanka la qabtana gobolka uguma dhaco shaqaalaha ka shaqeeya bisha August aynu ku jirnay 19 maanta mushahar may qaadan meeshuna waa dekad qalalan oo soo saarta maalintii adduunka badan $13,000 lacagta inta leeg dadka shaqeynaya haddii qofka uu ku dhaco COVID-19 ku dhakhtarka ama shay baarista ama shaqaalaha meesha jooga lacag la siiyo oo baxnaana ma jiro bariiska aqalkooga cuna waxaan oran karnaa waa weel weyn oo ku dhacaya dhaqaale badani oo inaan garanayn meel uu marayo xisbiyaha waxaan aaminsanay lacagta xaddiga leeg intii ay gal lahayn caloolada inay gasho caafimaadka qaranka oo lagu dhiso cusbitaal weyn oo waxa weeye lagaga kaaftoomo dhibaatooyinka dadkeena lagu dabiibo cusbitaalka uu mishiinka lacagta inta leeg soo saarayo deyn $1 milyan ka badan baa lagu leeyahay oo kharashaadkiisa expenseskiisa iyo dakhligiisu isma daboolaan waxna kaga ma noqdaan isaga adeegyada ka baxay iyo duruufta uu ku jirana waynu aragnay waliba waxa runtii si nafur loo shaqeeya oo la dafiri karin shaqaalaha dhakhaatiirta dhalinyarada ee jooga waxay sameeyaan sacrifice weyn iyagoo mushaharooyinkooda kuwa ugu badan eeda ah $1,900,000 uu yahay baa haddana 24 saacadood ay qaarkood heegan ku jiraan marka de kharashka inta leeg ee ka soo baxaya laabka COVID-19 wasaaraddu meel ay ku cadaysay inuu ku baxay ma jiro waxaanaanu tuhunsannahay oo waliba xogaheedu soo baxaya in dad ka hodmeen ay guriga ka dhisteen oo dhaqaalaha lagu sameeyo musuq iyo corruption xisbiyahan waxaan soo jeedinaynaa golaha wakiilada ee cusub inay u yeedhaan wasiirka iyo agaasimahaba oo laga waraysto adduunka 2 milyan iyo barka ka badan ee ka soo baxaya COVID-19 halka uu galo iyo cidda isticmaashay sida loo isticmaalo si qarankan uga faa'iideysto oo cid gaar ah lacagtiisa iyo dhaqaalihiisa ugu tasarrufin in la geliyo hantidaas iyo adduunka dhismaha cusbitaal casri ah oo Hargeysa yeelato maadaama uu yahay kharash cusub iyo dakhli cusub oo ku soo kordhay cusbitaalka oo la geyngaraynayo oo laga helayo shaqo aanay ku baxaynin expenses in hanti dhowrku uu galo oo waliba si daah furan oo madax bannaan baaritaan dhaba loogu sameeyo musuq iyo corruption ka dhex jira wasaaradda iyo cusbitaalka labadaba in mas'uuliyadda wasaaradda iyo cidda loo dhiibaya ay noqoto dad ka madax bannaan conflict of interest oo aan lahayn iyagu shaqooyin kale oo ay public kaga
ama mashquulaan ama ka daneeyaan ama ay ka doorbidaan oy noqdaan dad qaranka 24 saacadood inta loo baahdaba u shaqaynaya oo ka shaqaynaya. shan waxaan u soo jeedinaynaa golaha wakiilada cusub inay sameeyaan oo la curiyo xeerka caafimaadka qaranka oo isagu ka jawaabaya duruufahan oo dhan oo sheegaya awoodahan oo sheegaya waxa weeyaan sida loo maamulayo caafimaadkeena public iyo private iyo mas'uuliyadaha ka dhaxdhacaya xuquuqaha ka dhaxdhacaya in la sameeyo. qodobka lixaad waxaan soo jeedinaynaa shaqaalaha duruufta adag ku shaqaynaya caafimaadka ee cusbitaalada jooga ee halganka ku jira ee heeganka ku jira ee ka bilaabmaya neeras ilaa nadiifiso ilaa dhakhtar ee labada gelin iyo habeenkiiba ku shaqaynaya duruufta adageen aragnay in mushaharooyinka loo kordhiyo oo duruufta ay ku shaqaynayaan mid lamida la dareemo oo qaranku dareemo mushaharooyinka loo kordhiyo si aanay u imanin niyad jab iyo qofka shaqaalaha inuu qofka client-kii u adeegayay ee sarirta saaran uu ka goosto. adeega caafimaad ee guud ee dalkuna wuxuu maraya meel liidata iyo meelaan wanaagsanayn si guudna bulsho ahaan hadda wasaaraddu xaalad adag bay ku jirta oo haddii aad booqato waxaad dareemaysaa isku dheelitirnaan la-aan shaqo oo meesha ka socota. wasiirkiiyo bannaan ku xidhan oo iska fadhiyo oo aan waxa shaahu ku hor qaboobayo oo aan cidna u galayn shaqanahayn iyo kiyuuga agaasimaha loogu jiro. marka waxaad fahmaysaa shaqadu inay meel ku ciirtay ku dhacdo ciddii ay ahayd inay qabataana ay bannaan fadhita. marka waxaanu si degdeg ah u soo jeedinaynaa golayaasha cusub inay farageliyaan madaxweynaha qaranku inuu isaguna ogaado mishiinka noqday dekada qalalan ee cusubna ee shaqo lacagta cusub samaynayana isagana xisbiyaha waxaanu soo jeedinaynaa in si dhaba oo daahfuran oo transparency aynu u ogaano. xanuunkiina wadamada qaar uu soo laba kacleeyay muwaadiniinta iska baaraya COVID-19 maadaama meeshu ay tahay meel macaash qaar baa natiijadii jawaabta 8 habeen iyo 7 habeen suga qofka dhoofaya ee $45 isagu bixinaya laga helayo koskuna 4 saac ilaa 3 saac inta u dhaxayso ayuu sugaa jawaabta uu hor fadhiya. marka waxaan u soo jeedinaynaa cid kasta oo ay khusaysaba in lagu baraarugsanaado oo aynu ogaano oo aynu ku xisaabtano dhaqaalaheena iyo caafimaadkeena iyo wax kasta oo waxa weeye soconaya.